asxaabta waxaan kasii wadayaa videoga hore meeshuu iga istaagay. Waxaan qiyaasayaa waxaan marayay client side waan dhameeyey inaan ka sharaxaadiisa gaaban. Server side-kuna waa qeyb kale oo iyaduna mataqaanaa ka duwan client side. Client side-ku waa qeybta mataqaanaa sidaan sheegay qofka applicationkiisa u isticmaalayo ama mobilekiisa ku jirta ama desktopkiisa saaran, laptopkiisa inta badan ay ku shubto ama qofka laptopkiisa ku shubto. Server side-ku waa codeka la qoro ee serverka saaran ee codsiga marka uu doonayo client side-ku inuu codsado something ama markuu doonayo inuu mataqaanaa qof diiwaan geliyo meesha uu sii maro kadibna kaas ayaa process gareynaya wuxuu usii gudbinayaa mataqaanaa server side-ka wuxuu usii gudbinayaa database-ka iyo systemyada kale ee integrationka uu la leeyahay systemkaagu. kaas dad gooniya ayaa sameeya xaqiiqdana waa shaqada ugu badan meesha ay ka dhacdo. Server side-ku waa applicationka hawlihiisa ugu badan meesha laga fuliyo. Waxaa kaloo ka hadli doonaa iyadana oo u baahan teamkan faraha badan ee sameynaya halkan application uu ka koobnaada isaguna quality assurance dadka sameeya ama loo yaqaano testerska. Iyaguna waxay isticmaalaan tools ama waxyaabo loogu talagalay iyaga gooni u ah oo aqoon gooni ayay u baahan yihiin oo systemka la iskama diro iyadoo waxaaga la test gareynin, waayo wax badan baa kaaga imaanaya. Testing waa qayb muhiim ah oo ka mid ah developmentiga ama sameynta mataqaanaa applicationada. Waxaa jira iyadana database designers, waana qaybta xaqiiqdii qaybaha ugu muhiimsan bay ku jirtaa in systemkaagu haddii uusan aysan database designers ama qof aqoon u leh database-ka uusan si fiican u sameynin inconsistent mataqaanaa inefficiency badan baa imaanaysa oo mataqaanaa sidii la rabay uma shaqeynaya systemkaagu, datadii baa iska corrupt garoobaysa, waxyaabo dhib badan baa ka imaanaya. Marka dad aan cilmi kale lahayn ama cilmi kaleba ha lahaadaan haday doonaan laakiin aad ugu takhasusay database-ka ayaa loo baahan yahay. Sidoo kale waxaa jira sysadmins ama waxa loo yaqaano DevOps ka hadda waayahan dambe socda ee ah developers iyo mataqaanaa operationska la isku daray. Sysadminsku shaqo badan bay igu qabtaan, waa dadka infrastructureka systemka dhan socodsiiya oo serveradii loo baahnaa iyo mataqaanaa backupkii iyo waxaas oo dhan iyo mataqaanaa in haddii wax loo badan in install gareeyo configurationska waxyaabo hawlo aad u fara badan bay qabtaan. Security-gii maaragtay hawlo aad u fara badan bay xaqiiqdii qabtaan. Marka aan kasii gudbo aan kasii socdo maaragtay raadi ahaada soo dhaafnay meelahan. Okay, noocyada mobilada noocyada kala yihiin, applicationada la isticmaalo noocyada kala yihiin. Saddex nooc ayaa loo kala qaybiyaa xaqiiqdii. midda bidixda jirta mobile webku application maba ahanba, waa website-kii oo mobile lagu tusay, waxaa la yirahdaa mobile web baa la yirahdaa. oo mobilekaasi wuxuu mataqaanaa browserka mobileka wuxuu optimize gareynayaa in sidii uu sameyn karo. midda kale qofka develop gareynaya wuxuu og yahay in mobile lagu isticmaali doono, marka sidii website-ku isticmaali lahaa uma sameynayo, si ka duwan buu u sameynaya oo mataqaanaa screen yar wax walba loogu talagalay. Maybe HTML5 luqad wuxuu gooniyo ayadana mataqaanaa responsive ayuu isticmaalayaa. Maaragtay sidoo kale waxaa jira hybrid. Dhinaca kale midigta haddaan u guurno meesha ay ku qoran tahay pure native, waa application lagu qoray luqadda loogu talagalay operating systemkaas. Tusaale ahaan hadduu Android yahay waa in Java baa lagu qoray, XML iyo Java iyo maaragtay waxyaabihii loogu talagalay oo si native screenska markaa sameynaysid ma isticmaalaysid HTML iyo JavaScript iyo waxaas ma isticmaalaysid. waxaad isticmaalaysaa hadduu iOS yahay luqadii goonida ahayd oo loogu talagalay baa lagu qoray isagana. Marka oo mataqaanaa ama Swift ha ahaado ama mataqaanaa Objective C wixii luqadii loogu talagalay oo operating systemkaas uu leeyahay baa lagu sameynaya mobile. Hybrid waa mid u dhaxaysa labadooda. Dad badan baa waxay sameeyaan application-koodu already waxaa laga yaabaa inay mobile web tahay oo ay si fiican qofku hadduu browserka furo oo applicationka website-kaas uu fiiriyo inuu si fiicanba usoo baxayaba oo qurux badan. Marka mana doonayaan inay lacag badan ku bixiyaan inay application development siiyaan pure native sameeyaan, maaragtay ma doonayaan. Marka waxay rabaan in application-koodii ay application ahaan u noqoto dadkii markay arkaan labadoodana la kala garan waayo. Marka waxaa jira browser
in-app browser la yiraahdo ama web view u yaqaanaan oo applicationkaaga ayaad ku dul xiraysaa. Applicationkaaga markaas waxay u kacaysaa websitekaagii wuxuu u kacaya application ahaan. Browserka caadiga ah oo qofka uu leeyahay ma gelayo oo www ma qorayo iyo wixii la qori jiray, batoonkaas ku dhufanaya, laakiin websitekaagii wuxuu kusoo mataqaanaa sawirmaya ama kusoo baxaya browserka oo hybrid native-ka isticmaalaya ama web view waxa loo yaqaano. Qofki ma kala garan kara inay application caadiya tahay iyo inay tahay maaragtay website aad gooni u samaysay. Balse waxyaabaha ay ku xun tahay waxaa kamid ah hybridku qaybo badan oo native, inkastoo HTML5 iyo mataqaanaa hadda feature badan hadda lagu daray oo aad codsan kartid waxyaabo kamid ah maaragtay native stuff sida mataqaanaa camerada oo kale, microphone-ka oo kale, laakiin SDK-yada qaarkood waa mataqaanaa ama applicationada waaweyn qaarkood waxay u baahan yihiin feature badan oo uusan HTML ku samayn karinin. balse dadku alaab ay ku murmaan waxay yiraahdaan hybrid anigoo awooda maxaa igu wataba inaan native kalaba. Hybridka faa'iidada kale uu leeyahay waxa weeye sidoo kale sida aad ugu samaysay Android-ka asana kale ugu samaysaa ya Windows-kana ku samaynaysaa. halkaagii website baa Windows-na ku rangareynaysaa, waxaad ku rangareynaysaa iOS-kii, waxaad ku rangareynaysaa Android-kaagii. Okay, mid aniga aan aad ku mataqaanaa u xiiseeyo waa pure native-ka applicationada la yiraahdo. Marka la dhisayo iyo dhibka iyo waxyaabaha laga maro ayaan doonayaa inaan halkan idinkugu falanqeeyo. laba app baa jira applicationada dhismahooda fudud yahay. qofku markuu hadda yiraahdo application baan dhisayaa, hadduu qof inta ku yimaado application baan dhisayaa ama idis meeqaad igu samaynaysaa ku yiraahdo, waxa weeye guri idis meeqaad igu dhisaysaa, guri ma dabaq baad rabtaa 12 dabaqa, ma waxaad rabtaa guri yaroo cariishaad rabtaa, ma isku lacag maaha. mataqaanaa qofka waxa uu rabo inta uu la eg yahay. applicationadu waa intaasoo kale lamid ah, mid walba featureskiisa iyo waxyaabaha looga baahan yahay ayaa sii badanaya mataqaanaa qarashkiisa iyo hawshiisa sii badanaya. Okay, saddex qaybood ayaan kasoo qaatay applicationada loo kala qaybinayo. apps and server side ama backend waxa loo yaqaano u baahnayn. applicationkaas mobilekaaga kama baxayso, internet hadduu xitaa mobilekaaga internet lahayn way shaqaynaysaa. mobilekaaga ku dhex jirtaa offline baa la yiraahdaa, ama waxaa kamid ah gameska qaarkood. wax kasta aad u baahan tahay applicationkaas dhex gelinaysaa oo data kasta u baahan tahay. alarmka kamid aad aragteen, gameska qaamkooda kamid ah wuu iska shaqaynaya haddii internet la-aan aad tahay haddii kalaba. applicationkaas offline internet waa applicationada ugu fudud ee la sameeyo, waqti yar gudihiis baana ku samayn karnaa oo nooca applicationada la yiraahdo. waxaa jira applicationo server side ku xiran oo u baahan, oo weliba server side-kaas adigu dhistid loo baahan yahay. sababtoo ah markaad application-ka samaysid, application keligeed wax ma tari karto. waa inay haddii qof doonaysa inay register garayso, waa inay serverka u dhiibtaa magacii iyo mataqaana emailkii iyo date of birthkii iyo wixii markay qabatay waa inay serverka u dhiibtaa. serverka waa intuu process gareeyo, waa inuu fiiriyaa database-ka usii dhiibaa, database-ka waa inay xaraysaa mataqaana. marka applicationkaas waxay u baahan tahay hal qof qaban kara, uma baahna ka badan bay u baahan tahay. applicationka kore hal qof waa laga yaabaa inuu qabto, oo qofka Android developer biskay u baahan tahay. laakiin middan dhexe oo ku xigta oo ay u baahan tahay server inay u baahan tahay, waxaad u baahan tahay backend developer u baahan tahay, waxaad u baahan tahay database design qofku sameeya u baahan tahay, waxaad u baahan tahay meesha aad ku shubaysid oo ku host gareynaysid sysadmin mataqaanaa serverkii ku siiya haddii load balances loo baahdo, oo mataqaanaa loo baahdo haddii mataqaanaa simple things like maaragtay firewallka ina furo portkiisa. qof kasta developerka ma samayn karo, qofka sysadminka baa wixii samaysta. marka in maaragtay dadkii badnaa oo tirada badnaa soo sheegay bay applicationada mid walbaba u baahnaanaysaa. waxaa jira apps kale oo iyaguna server side ku xirma, balse laakiin adigu server side aadan samaynin. sida waxa jira wax la yiraahdo public API, sida Google Business APIs. haddaad u baahatid Google waxaad dhihi kartaa inta iska register garaysid baa waxaa leedahay API-gaagaan wacaya, waxaad ii soo celisaa businessyada ii dhow oo dhan markaan meesha aan joogo kuu sheega latitude-kooda iyo longitude-kooda ku siiyo, and businessyadii oo dhan buu ku siinaya. businessyadaas adigu maadan diiwaangelin, serverkaas backend-giisa adiga maadan qorin, Google baa qoray, laakiin wuxuu kaaga dhigay public APIs buu kaaga dhigay. dadka qof waa suuq furan, qofkii rabaa isticmaali kara baa wici kara, ma garata. laakiin inaa marka hore way secure garaysan, waa inaa marka hore ayaga iska diiwaan gelisaa. waxay ku siinayaan token code ay ku siinayaan, kadib APIs-koodaas isticmaalaysaa hadii la yirahdo. Facebook sidoo kale wuu leeyahay application. waxaad samayn kartaa Facebook-gaaga mataqaanaa APIs-kiisa public aad toos soo geli kartid. waxaad leedahay qofkan waxa saaxiibadiisa tus wuu ku tusaya, qofkan mataqaanaa applicationka mobileka Facebook laftiisa hadaad ku faraxsanay mid adiga aad leedahay samaysan kartaa. haddii message baad ka diraysaa qofka saaxiibkaa mataqaanaa oo Facebook application ama messengerka isticmaalaya toos buu helaya.
waxa kaloo la mid ah sida Google ku shaqeeya Google Translate application badan waxa aragtay translation sameynaya Google APIs for the public waxa kamid ah translation hadaad erey Soomaaliya u dhiibtid erey Ingiriisi ku soo celinaya ma taqaana waa qaabka APIs hadaad ku wareegtid ama public APIs wax kale ma ahan waxa weeye waa service shaqo qabanaya oo kunta ku adigu waxay dadku inta badan yiraahdaan waa endpoint ama inta aad wax u dirtid hal shaqo ereygan Soomaaliga ii turjumba leedahay qaabkii aad ugu dhiibi lahayd oo serverkaas uu ku fahmi lahaa weeye macnaha uu ku soo celinayo inta dadku qofka Java-ga aad ugu dhex jira waxa dhigi kartaa methodka Java-ga methodyadiisa qaar marka method tamisid oo aad wacaysid waxa la yiraahdaa interfaces weeye oo aad wacaysid waa qaabkii midalan register user hadii aad API RESTful API samaysid oo aad ka soo wacaysid mobile-ka ka soo wacaysid waxaad u sheegaysaa methodkaas meesha laga helo address-ku wuxuu ka kooban yahay URL-ka qofka port-kii parameters-ka u dhiibaysay methodkaas oo dhan wax kale maahan waxa weeye waa URL ama link qaybta Java code-ka ee registration-ka process gareynaysa mobile-ka uu intuu u soo dhiibo oo server-ku intuu arko uu fahmayo oo mataqaanaa qaybtii code-ka ahayd ee registration-ka sameynaysa uu gudbinayo that's public APIs-ka waxa la yiraahdo ayaga laba nooc public iyo waxa la yiraahdaa private waa kuwa adigu aad samaysatay oo dadku ay rabto inaysan helinin oo aad ka qarinaysid mataqaanaa security gooni aad ku xiraysaa dadka kale ma helayaan laakiin public-kuna waxa weeye kuwa dadku helaan application-ada marka noocan bay u kala baxaan waxaan rabaa marka inaan eego dadkii aan ka soo hadlay aan eri team kasta ee software sameeya hadii software weyn lagu keeno ama software application sameeya lagu yiraahdo inta team ay ka koobnaanayaan waxa kamid ah kii ugu horeeyaan ka hadlay user interface ama user experience designers dadka aan eri waa dadka hawsha xaqiiqdii hawsha ugu application-ka hadii inay qurxoonaato dadkan baa qurxiya aan ku sheegay qofku wuxuu arkay weey waa dadka design gareeya batanada waa dadka sawirada geliya waa screen-ka dhan waxa kasto qofku arkaya dadka design gareeya weeye ayagu code ahaan ma qorayaan balse design-kii ugu horeeyay oo qofka developer oo raacayo bay sameeyaan waxay isticmaalaan software aad u fara badan oo kala duwan Zeppelin Fluid Sketch la yiraahdo waxay sameeyaan wax prototyping la yiraahdo prototyping waxa weeye ama designs qaab marka hore qofku intuusan coding-ka badankiis ama wireframing waxay dhahaan iyo mataqaanaa prototyping qofku intuusan samaynin code uusan gelinin uu marka ugu horeysaba wuxuu sameynayaa button screen-kiiba wuxuu qofkii customer-ka ahaa oo la fadhiya ayuu leeyahay next ku dhufo user experience waxyaabaha kamid waxa kamid research ku sameynaysa qofkii su'aalaad weydiinaysaa testing baad ka qaadaysaa screen-kii wax code lama sameynin weli screen empty aadaya mataqaanaa button ku xigsanaya marka qalab aad u fara badan baa loo sameeyaa marka user interface ama user experience designers ay dhameeyaan hawshan ayaa ka bacdi developerska loo gudbiyaa developerska design-kii haysta qofkii screen-isu arkay oo uu ku soo faraxsan yahay ku jira ayay screen-kaas ayay waxay u bedelayaan code u bedelayaan oo implement gareynayaan inta qaataan marka waxyaabaha kale oo kamid waxa kamid dadka developerska ama Android-ka ha ahaado kuma fiicna mataqaanaa inay logo design gareeyaan kuma fiicna in sawir meel la gelinayo cabirkiisa iyo wixiisa dhan kuma fiicna iyagu code-kii un bay qorayaan kaliya dadka waxa loogada soo design gareynaya oo sawirada meelaha kala gelinaya oo button-ka qurxinaya mataqaanaa waa dadka UI designers-ka hadhowna qayb code-ka waxyaabaha sawiradaas ay sameeyeen ayagoo assets baa la yiraahdaa waxay u soo dhiibayaan developerska ayagoo resource developerska ayaa isticmaalaya kadibna way sii socodsiinayaan oo sidii screen-kii oo qofkii user experience designers-ka uu sameeyay ayay u ekeysiinayaan bahalka waxyaabaha aan ereyada alaaba aan maqlayso waxa kamid ah wireframing prototyping personalized scenarios storyboards user testing user research waxyaabaha ay sameeyaan inta badan oo hawlahooda la xiriira ereyadaas bixintaas aad inta badan maqlaysaa markaad ku jirtid software-adana waa software qayb kamid ah qaybaha ay isticmaalaan waxaa kale aan doonaya inaan tuso waxa weeye qaybtan teamskii baa weli sii socda qaybta client side-ka ee developerska ah markii dadkii hadayta aan kasoo hadlay user experience developerska ay mataqaanaa ay soo gudbiyaan hawshooda waxa qaadanaya client side developers balse client side developers laftigooda si kala baxa waxaa jira Android developers
waxaa jira iOS developers, waxaa jira Windows developers, waxaa jira mobile web developers oo mataqaanaa tirada mid walbana cilmi gooniya ayuu leeyahay oo mataqaanaa oo loo baahan yahay luqad gooniya ku hadla sida mesela qofka Android developer waa inuu Java yaqaana waa inuu Android yaqaana Android Studio IDE waa inuu isticmaalo yaqaana SQLite database waa inuu yaqaana JSON waa inuu yaqaana waa inuu XML yaqaana waa inuu Gradle sida mataqaanaa laftiisa loo isticmaalo yaqaana material design inuu fahansan yahay RESTful APIs inuu fahansan yahay waxyaabahaas oo dhan haddii marka qofka Android developer inta la yiraahdo okay Android baa develop garaysa iOS noo samee uma baahan waa inuu ma sameyn karo waa inuu luqad bartaa waa inuu mataqaanaa system kale oo wixii la mid ah wixii inta kale uu sameynayaba kuwana sameynayaan laakiin isku dariiqo ma marayaan isku syntax ma aha isku mataqaanaa waxyaabaha way kala duwan yihiin marka qofka Android developer oo gooni baa loo kreystaa qofka iOS ka gooni baa loo kreystaa qofka Windows gooni baa loo kreystaa laakiin programming language ka isticmaalaya meesha qofka Android ka uu isticmaalayay Java oo ka isticmaalayay iyo XML qofka iOS developer wuxuu isticmaalayaa luqadda cusub hadda la soo bixin la yiraahdo Swift iyo Objective C ama midka buu isticmaali karaa waliba xataa C Xcode buu mataqaanaa Xcode wuxuu u dhigmaa Android Studio kala camal waa IDE waa isagana wax lagu sameeyo wax lagu qoro weeye database kan SQLite ka oo waa database waxa la yiraahdaa in-app database baa la yiraahdaa application ka client side ka laftigeedu waxay u baahan tahay database inay ku xarayso marka application kaagu si ay u xasuusato waxyaabaha qaarkood waxaad isticmaalaysaa database kaas oo ama screenada qaarkood aad fast uga dhigtay inay waxyaabaha qaarkood ku tusaan baa isticmaalaysaa marka JSON-kii wuu ka dhexeeya waa inta mataqaanaa waa standard waxa weeye the data transfer mataqaanaa objects caadiga la isticmaalo weeye XML-ka sidoo kale RESTful APIs ku ayaga laftigoodu waa inuu fahansanaada waayo RESTful APIs ku waxa weeye inta badan hadda waagii hore way jiraan SOAP APIs wax la yiraahdo iyo mataqaanaa RESTful APIs waxay alaaba sameeyaan JSON ama XML ama bahalkii laakiin waa qaab hadda define garaysan oo inta badan serverka iyo client-ku iskula xiriiraan waa luqad gooniya ay isla fahmaan maaragtay qaab gooniya isku fahmaan oo serverka iyo client-ka iskula xiriiraan sidoo kale Windows developers ayaguna hawl badan baa u taala luqada gooniya isticmaalaan oo ka duwan C# sida arkaysaan baa ugu horeeya .NET XAML Visual Studio JavaScript HTML SQLite JSON XML waxyaabaha qaarkood way iskaga mid yihiin balse mararka qaarkood waxa arkaysa ardayda badan oo Soomaaliya mataqaanaa ku bartay jaamacadaha uga soo baxay waxa arkaysa wuxuu ku leeyahay waxaan bartay C# iyo Android waa laba company oo kala duwan software main isticmaalaan weeye iyo bahalkii baan bartay ama wuxuu ku leeyahay waxaan dhiganayaa hadda mataqaanaa Objective C iyo bahalkii hal meel kaliya haddaad joogin luqadaha qaarkood waa inaad kala taqaanaa shirkadaha kale leh waa inaad kala taqaanaa device-yada ay ku kala rangareyn karaan waa inaad kala taqaanaa haddii ay iskaga kaa wareersan yihiin maalinba meed baa u boodaysaa weligaana wax soo saar ma yeelanaysid marka dambena inta ka caajisad faraha ka qaadataa leedahay waxna lagugu talagalay wax la soo saari kara maaha balse laakiin haddaad guidance heshid sidaas oo kale lagu tusto oo aad leedahay okay halkan line baan ku mashquulaya wixiisa dhan baan baranayaa markaan qaybtan sameeyo xataa waxaad la shaqayn kartaa qof kale oo line kala bartay bas wax isku darsan kartaan oo wax isla qabsan kartaan waxaa kaloo jira iyadana mataqaanaa mobile web developers ka jira oo HTML-ka مثلا haddii application-ka website-kaaga darab in maaragtay browser-ka mobile-ka uu ku furmo iyadoo qaab mobile ahaan oo sidan hadda usoo sheegay la optimize gareeyay baa jirta HTML5 iyo JavaScript iyo CSS saddexda language baa la isticmaalaa kadibna mataqaanaa website wax walba aad sameynaysid baa ku soo baxaya waxaa jira tools kale oo la isticmaalo oo mararka qaarkood maqlaysa siiba kuwan weliba qaybtan midka ugu horeeya Maven Java dadka way yaqaanaan waxaa la yiraahdaa build tools waa tools ku ogolaanaya in software-kaaga maaragtay aad samaysay lagu build gareeyo adiga gacanta kuma taabanaysid compile iyo ma dhexaysid asaga mataqaanaa waa rangareynaysaa asaga compile gareynaya testingkii asaga marinaya kadib deployment hadda rabta xitaa wuu ku sameeynaya aakhirka war file ama jar file waxa rabtay wuu ku soo saaraya waa marka Maven-ka iyo Gradle-ka iyo waxaas oo dhan ayaga qaabkaas sameeyaan iyo Antio waxa la yiraahdaa build tools wax kale ma qabtaan code-kaaga ku caawinayaan way ku build gareynayaan aakhirka artifact-ga ama shayga aad rabtid ayay ku siinayaan shaygaas ayaad markaas qaadaysaa serverka ku deploy gareynaysaa inta badan shaygaasna waxaa kamid ah ama waa war file ama waa mataqaanaa jar file ama waa application APK aan mataqaanaa hadda rabtid oo Android ah ama mid application kale waxaa sidoo kale jira igana Git-ka oo ah qaybaha mataqaanaa dadku ku wadaagaan software-ka source code-ka qoraan مثلا
waa repository ama meel lagu xarayo codekaaga oo dadka inay mataqaanaa wax khaldan ka ilaalinaysa ama codekaas la share gareynayo laba developer isla shaqeynayaan waxay isticmaalayaan gitkaas bay isticmaalayaan ama svn-ka subversionkaas ama maqasheen labadaba waa isku shaqo laakiin dad meel qaabab kala duwan bay u shaqeeyaan wax kale maahana waa meel codeka lagu kayd garaysto sida ama kasoo qaad dropbox oo kale ilaalinaysa maaragtay dadku inay maaragtay mid oo wixii kii hore qoray kan kala mataqaana overwriting ku sameeya haddii sameeyana xataa mataqaana version number bay u sameynaysaa version system baa yiraahdaa version number bay u sameynaysaa waa taqaanaa maaragtay qof walba meesha uu versionka marayo ama si inaan mataqaanaa isugu istaagin kasii soconaya waxaan usii gudbayaa server side developerska server side developersku waxaa weeye ayagana shaqo badan baa tara waan dadka shaqada ugu badan xaqiiqdii qabta qofka serverka fadhiya mataqaanaa hawsha ugu badan waayo logica ugu badan waa codeka meesha laga sameeyo weeye waxyaabaha ugu badan haddii xataa systemkaaga database la xiriirayo ama hadduu system kale aadayo hadduu calculation sameynayo meesha uu ka sameeyo weeye oo serverkaaga dhan aad ka controlaysid weeye oo akhbaarta ay mobileka u baahan tahay looga sii gudbiyo weeye java developers baa jira ayagaa sii kala baxaya xaqiiqdii xataa fiirada server side developers kuwa kala badan yihiin java developers baa jira oo mataqaana applicationada javaga sameeya oo magaciisa gooni u yahay waxyaabaha teknolojiyada ay isticmaalaan waxaa kamid ah java spring hibernate jpa sql maaragtay json xml gradle maven ant waxyaabahaas oo kale cilmigaas goonidaas baad u baahan tahay goonida web servers baa jira oo sida tomcat iyo jet iyo application servers baa jira iyaguna gooni u ah web services baa jira restful apis kii oo mataqaanaa in si uu kula soo xiriiro maxaa la yirahdaa mobileku waa inaad applicationkaaga si qaab aad labadina isfahmi kartaan u qortaa ama server sidekaaga codekiisa waa inaad sida u qortaa Node.js developers jira oo iyaguna JavaScript ku salaysan ama Node.js waxa la yiraahdo JSON-ka waa isticmaalayaan XML-ka marka back endiga ama serverka codekiisa ama Java baad ku qoran kartaa ama Node.js developer ku qoran kartaa ama LAMP waxa loo yiraahdo mataqaana Linux Apache MySQL and PHP baa loo soo gaabshaa oo waa hal stack weeye LAMP stack baa la yiraahdaa ba hadda PHP gaas aad ku qoranaysaa haddaad doonto marka qasab maahan haddaad inaad PHP baratid haddii applicationkaaga Java develop kaliya ahaanaysid ma garatay aniga PHP goorma ugu dambeysay jaamacadda ugu dambeysay markasta Java baan teknolojiyadan ku shaqeeyaa marka qof waxa arkaysa isku khaldayo dhahaya mataqaana Java aan baranaya dana PHP aan baranaya ma muhiim ah waa inaad kala taqaanaa qaybaha si ay kugu fududaadaan waxyaabaha aad qabanaysid oo aadan waqti kaaga khasaar aadan way jiraan luqado badan oo inta aan bartay aan ku shalay hadda iraahdo maxaa kaas ugu baad haddaan hadda waxaan fahansanahay aan fahansanaan lahaa waqti hal daqiiqad kuma dhumayaan sababtoo ah waxa ay ii qabtaan waxa haysta mataqaanaa framework ama qof wax kale oo Java ah oo ii qaban karaan haysta magarad marka taasi waa midaas waxa kale jira Windows developers ayagana waxay isticmaalaan back-endiga C# ama ASP.NET wax la yiraahdo bay isticmaalaan XAML iyo Visual Studio JavaScript HTML SQL JSON XML Link RESTful APIs waxyaabo badan isticmaalaan marka ujeedku waxa weeye in aadan wareerinin haddaad damacdo inaad developer noqotid qaybta aad mantiqana ku dhageysi waa taqaanaa waxaan usoo noqonaynaa quality assurance-ga dadkan ayagoo hawl badan bay qabtaan software aad u fara badan bay isticmaalaan techniques badan bay isticmaalaan qofka developerka ama qasab inuu barto qaabka testing inkastoo qayb development ka mid ah ay tahay sida JUnit testing iyo integration testing qaarkood codeka qaarkood in adiga qortid la rabo laakiin kama dambaysta dadka test gareynaya oo departmentiga ugu talagal ugu dambaysta waxaad qortay eegaya waa dad gooniya oo mataqaanaa wax kale ma qabtaanba applicationkaaga inay cilad ka raadiyaan ama si mataqaanaa khalad ay u helaan bay ku takhasuseen software kala duwan oo loo adeegsaday isticmaalayaan ama mataqaanaa Selenium mataqaanaa JTest ama mataqaanaa waxyaabo badan baa inta ku jira mataqaanaa qaar mocking bay isticmaalaan qaar profiling bay isticmaalaan mataqaanaa wax profiling la yiraahdo oo mataqaanaa waxa kale oo kamid ah JMeter oo aad mataqaanaa asaguna aad lagu isticmaalo maaragtay qaabka testingka ama load testingka wax la yiraahdo oo in aad fiirisid Serenity Gout way badan yihiin marka taasna waa midkan kuwa kale weeye oo aad aragteen database designers ayagana hawshooda database designers hawshooda ma yara xaqiiqdii waa inuu qofku yaqaan SQL waa inuu yaqaan wax NoSQL la yiraahdo waa inuu yaqaan RDMS wax la yiraahdo Relational Database Management Systems ay dhahaan graph database jira sida mataqaana oo aad advanced oo sida mataqaana Facebook kala isticmaala qaab graphs wax la yiraahdo ay isticmaalaan sida userkooda markii ay
xiriiryada ka dhexay iyo relationshipkooda ay maabgareynayaan. MySQL Workbench isagana designka waa lagu sameeyaa buu ku samayn karaa. Erwin waxa la dhahaa jiro isaguna mataqaanaa database designka laftigeeda lagu samaysto markuu qofku sameeyo user experience user experience designers markay sameeyaan designka qofka database-ka sameeya laftigiisa waa inuu inta designkaas qaadaa naqshadaya qofka developer waa inuu naqshadaya kan back endiga laftigiisu waa in mataqaanaa la shaqeeyo la yiraahdaa okay maxaa models maxaa mataqaanaa utilities maxaa bahalkiya maxaa database-kana wax loo baahan yahay waxaas oo dhan shir dhan baa ka dhacay oo laga fariisanaya maad cawdan waa wadi karaa tiradooda ka batay software gooniya marka waxaan kaliya rabaa inaan idin tuso qof waxaan oo dhan isku noqon karaa dhahaya ma jiro qofka waa inuu yaqaanaa meesha uu aadayo waxyaabaha uu aadayo jaamacadaha laftigooda waa inay ka fikiraan yiraahdaan okay qofkan qaybtan kaliya maaragtay aan tababarno aan soo saarno qof waxaan ku takhasusay oo mataqaanaa cilmigiisu intaa kooban yahay haddii company uu yimaado ama anigoo kale aan raadinayo 5 qof oo waxaan qabsanayaa mataqaanaa database designer baan raadinayaa baalkii baan raadinaya inta dhilaha hal qof oo waxaan oo dhan iga qabtaan raadinaya ma garatay 5 qof baa shaqo meesha kaga helaysa qof walbana waqtigiisa wixii uu qaban lahaa waqti jar buu ku qabanaya waayo cilmigeedu leeyahay wax kale maba qabtaba iyadoo intaan si fiican u bartay 2 daqiiqo kala tuuraya sysadmins jira ama DevOps wax la yiraahdo sysadminsku waxyaabaha ay aad ugu takhasusan waxa kamid ah mataqaanaa systemkaaga inay sameeyaan sida Linuxka bash scripting wax la yiraahdo Amazon Web Services cloud hosting wax ama cloud la yiraahdo wax dhowr xabaan ka soo qaatay shaqadooda inta kuma eka waxyaabaha waxaan rabaa tusaale inaad ka siiyo VMware clustering load balancing all that kind of stuff inta badan markii ay wax la yiraahdo hawlo badan bay qabteen xaqiiqadii oo aad u fara badan sysadminsku systemkaaga dhan meesha oo applicationada marka developers ay sameeyaan meeshii lagu rangareyn lahaa serveradii rangareyn lahaa backupkoodii securitygoodii dadka wax dhan qaabilsan weeye maaragtay dadkan aad arkaysid marka maadaama ay shirkado waaweyn sida Amazon oo kale ay wax cloud hosting iyo Google oo kale ay la yimaadeen waxyaabihii badnaa oo dadkan ay sameyn jireen oo gacanta inta la galaan ama serverada ee mataqaanaa VMs waxyaaba ay build gareyn jireen oo maintain gareyn jireen way yaraadeen marka waxyaabaha badankood shirkadahan lacagta la siinaya hosting ayaa sameynaya balse still weli shaqadoodii ma yara waa inaad wax gooni waa inaad u samaysaa laakiin way soo yaraatay sidii hore way ka badnaatay marka waxay sameeyeen system waxay la imaadeen wax cusub la yiraahdo DevOps kuwana shaqadoodii hore ay u qabtaan developerskana ay ula shaqeeyaan oo shaqada dheeraada u sameeyaan marka qofkan waxa weeye waana sysadmin waana developer oo gooni buu ka yahay marka hawsha taasi waa halkaa marka waxtarka tiimamka aan doonayo waxaan doonay inaan taas dhammaan idin soo tusay waxa weeye waxa Soomaaliya ay hal qofna u soo saar lahayd ama dadkii ay wax loo ama Soomaaliland ay u heli laanahay inta aan tagno dad mataqaanaa cilmiga iyo khibradii loo heli lahayd waxa weeye dadkiisi way wareereen waxa sidoo aan idin soo sheegay ku wareereen marka qaabka loogu wajahi karo oo qaabka loo aaday waxa weeye wax la yiraahdo divide and conquer waxay dhahaan dadka Ingiriiska ah ama kala qayb oo qayb u qaabil inta kala qayb u qaabil markaas wixii oo dhan way ku fududaanayaan problem kasta oo qaas da application sameynaysid waxa tiraahdaa okay 4 qof baa tihiin oo mataqaanaa oo jaamiciyiin oo mataqaanaa oo mid walbaba oo system ama software mataqaanaa generic software engineering soo bartay dib ma lahan jirna jaamacadana ku noqotay uma baahnid inaad mataqaanaa cilmiga tester aad noqotid kaliya waxa weeye adduunka maanta internetka wax walba yaala tutorial dheeraad aad helaysaa guidance baad helaysaa ma garatay waxaa tiraahdaa iskala qaybiyo waxaa tiraahdaa war hebelow adigu user interface designs-ka mataqaanaa ku takhasus hebelow adiguna waxaa ku takhasusaa mataqaanaa android-ka adigu iphone ku takhasus adigu windows ku takhasus mataqaanaa mid kale ha ku takhasuso ay sheeg maxaa la yiraahdaa back endiga mid kale mataqaanaa sysadminkii wixii loo baahdo cilad kasta oo dhacdana isla wadaaga system baa team baa sameynaysa markaas application waxaa laga yaabaa hal qof hadduu sameeyo applicationkaas in mataqaanaa saan soo sheegayba 5 sano 6 sano ku qaadanaya laakiin haddii qof walba intuu waxaas barto mar alaala markuu qof walba wuxuu yaqaanay khatar ku noqdo waxaa laga yaabaa bishii inaad 5 application soo saartaan oo mataqaanaa haddii xataa mid ay hit noqon weyso mid kale mataqaanaa khatar noqonayso oo aad mataqaanaa lacag ku helaysaa marka adiguna xil qof walbana marka waxa weeye wada shaqaynta iyo isku tagaas faa'iidada ugu weyn ku jirta adduunkana ma jiro qof kaligiis wax sameeyo ma jiro marka shantii qof wada kamid ah tiim ha samaystaan isku taga dib ma lahan maxaa la yiraahdaa hadduu xataa mid Australia joogo hadduu mid Mareykan joogo haddii 4 Soomaaliya joogto whatever mataqaanaa collaboration tools isticmaala
مثلا مارت أنا وحي أنا أول واحد خصوصا كورتين يا بس أنت إذا إما ذا كودي وحس إنه برا بس لكن وحيا بحنا وكلا عمل وفكرتها إذا السينة يا وإذا سودرية وإذا سودرية حتى توز أبها حتى لسكوا حرق أو وإذا هجاجي وإذا البامة يا مجرد مركا إن شن في سوق قيبية إن ما تقنا إن أو هاوشان سيدا عن سوشيال وكلا قيب سدا إن ما تقنا قفل بقيب السوق في عنانا يا مركا إن وحنا ولي بكتلين لها hal cilad oo jirta waxa weeye oo dadka Afrika jooga inta badan la haray ama dunida saddexaad waxa weeye saan soo sheegayba adduunka maanta shirkadaha ugu waaweyn sida hadda Apple oo kale hatta tarti inaad furatid developer account waa inaad lacag bixisaa waa inaad credit card samaysataa ma garatay lacagtii hadaadan credit card ama mataqaana aadan haysan debit kuma bixin waxaad ma bixin kartid lacagtii sidoo kale Google mataqaana waa inaad $25 developer account maartay registration fee bixisaa hadaadan haysanin منطقة develop account ما سمين كتير وحكوا كم إذا Amazon web services waxay bixiyaan oo hadda adoonina aad uga faa'iideysataan waxa weeye free tier service Linux server baa ku siinayaan waxa aad ku shuban kartid waliba waxa ku siinayaan system dan oo systemadooda dhan waxay leeyihiin qayb free tier ay dhahaan oo maaragtay normally lacag badan kugu cost garan lahayd laakiin hal sano free ka dhigan qof kasto cusub oo isdiiwaan geliya hal sano bay siinayaan hal server kaliya ma aha inta rabtid oo server oo free tier kaas baad shidanaysaa maxaa la yiraahdaa load balanceradooda isticmaali kartaa waxa EC2 ga yiraahdaan baa isticmaali kartaa RDS kooda isticmaali kartaa maaragtay ama relational data system kooda isticmaali kartaa waxyaabo badan baad isticmaali kartaa anigu systemka dhan ee Soomaali ah waxaan ka rangareeyaa maxaa la yiraahdaa Amazon web service aan ka rangareeyaa oo mataqaana qaybaha mataqaana waliba xataa storage qayb waxay leeyihiin S3 wax walba ku leeyihiin marka qofkii hadduu xataa rabo inuu account ka furto waa inuu credit card haysta waa inuu debit card haysta midkood hadduusan haysanin waxaan fiiga ma heli karo laakiin dad badan oo waxa jira Soomaaliya oo dibadaha jooga oo qaarkood ku jirka mataqaana wax bartay oo mataqaana jecel inay inta dad system la shaqeeyo xaqiiqdii company dhan dhisi kartaa si fudud ku dhisi kartaa xaqiiqdii waxa weeye dadka halkan jooga ee developerska ee credit card-yada haysta in afar qof ee Somaliland kala jooga intay ku kala xirmaan oo maaragtay asagoo halkan wixii hawlo socodsiinaya oo mataqaana hawlihii u baahan in lacagtii wixii lagu bixinayay hadii application-ku ay lacag samayso account-ki ku soo dhici lahayd isagoo duu raba daafshiil iyo mataqaana hormuud ha u mariyo meesha doon ha u mariyo haduu doon haduu lacag soo ha ku siiyo dadkaas markuu mushaarkooda siinayo balse laakiin ujeedku waxa weeye business dhan baad ka samayn kartaan xataa waxyaabaha ugu waaweyn oo waxa weeye Soomaalida ayada asaga ganacsata wax mid anigu waliba aan aad ka mataqaana uga soo horjeedo waxa weeye qofka software developer ah asagoo gurigiisa joogo ayuu wuxuu samayn karaa software China lagu isticmaalay oo qof China jooga oo lacagta bixinayo haddii aad doontid oo xataa haddii aadan mataqaana aadan software samaynin oo cilmiga hadda aan idin sheegaya aad heshaan oo aad Soomaaliya joogtid shirkad Mareykan joogta aad Soomaaliya joogta software-kaaga u samaynaysa mushaarkaaga ku soo diraysa marka ma aha waa cilmi kaliya adoo meel kasta adduunka aad joogtid aad qof inta uga shaqaysid mataqaana dhaqaalaha meeshaada kugu imaan kara imagine kumanaan Soomaaliya inta soo baxay maalin walba waxa way xawladu waa wareer lahayd lacag u dirayaan xaqiiqdii marka waxyaabaha aan rabo marka inaan ka hadlo waxa weeye aan midaas cloud hosting la yiraahdo hadda aan idin soo sheegay oo qofku uu ka faa'iideysan karo wax si badan mar gooniyan si fiican uga hadli doona oo seminar gooni aan ka bixi doona baan ka bixin doona hadii la yiraahdo ya toonti bank account iyo waxyaabaha aan ka hadlayay qofka haduu email u baahdo inuu gato mataqaana credit card buu u baahan yahay sida mataqaana domain name hadda iibsatina u baahdo credit card waxyaabaha hortaagan weeye qaabka kaliya marka aan hawshan uga bixi karno oo aan uga bixi karno waxa weeye in intayada dibadda joogta aan la shaqeyn inta gudaha joogta ayagu cilmigii ay goonidooda bartaan anaguna wixii mataqaana business ah iyo socodsiintii iyo hawshii iyo wixii oo halkan ilaa iyo waagii mataqaana Soomaaliya ama Somaliland ama whatever ay hesho mataqaana wadan dawlad mataqaana maxaa la yiraahdaa bangi system sax ah oo qof walba credit cardkiisa iyo wixiisa heli karo hadii la yiraahdo halkaas aan uga baxayaa khayr badan baa idin rajeynayaa hadii ilaahay yiraahdo waxaan isku dayayaa maadaama hawshan markii hore waxaan isdhahay week walba hal mar soo sameeyo wax noocan oo kala ah ama wixii su'aalo dadku ay weydiiyaan iyo qaababkii mataqaana system shirkadaha waaweyn ee mataqaana dunida saddexaad dunida koobaad jooga ay u shaqeeyaan baan rabay inaan mataqaana san idin la wadaago oo dadka aan wax ku soo kordhiyo laakiin xaqiiqdii waqti badan bay u qaadatay inaan hadda hawshan kaliya xataa aan idin diyaariyo qaarkeed oo soo gabagabay gadaha dad ka fiirsan mataqaana sida kuwii hore uma wanaagsana maaragtay marka
adigu bishii hal mar ama saddexdii week hal mar waxaan soo gelin karin waa idin soo gelinayaa wixii mataqaanaa tala iyo hor socodsiina waa idin soo gelin doonaa hadii la yiraahdo khayr badan baan idin rajaynaya